Somalimo halkay bargal ku taal balaraag balaraag boosasa iyo ilaa qurxiyo bacaan banaanka dureera iyo beeraha laagiya galgala beeraha laagiya galgala balaraag balaraag boosasa iyo ilaa qurxiyo bacaan banaanka dureera iyo beeraha laagiya galgala beeraha laagiya galgala balaraag بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maalin wanaagsan waqti wanaagsan goob walba iyo goor walba aad joogtaan waxaan ku sugannahay goobta dalxiiska ee laag dhulkaanaynu leenahay dhul kale ma lihin mana yeelanayno haddaynu dhalashadiisa qaadanno haddaynu ku dhoolaanno haddaynu carruur ku dhalno haddaynu gabdho dalkaa u dhashay ka guursanno hadday gabdhayna ka guursadaan intaba barwaaqadan ilaahay ina siiyey inaynu barwaaqadeennaas aragno inaynu ku intifaacno inaynu ogaanno dhulkeenna quruxda iyo wanaagga uu leeyahay إن شاء الله تعالى وحن رجينا وبهذا الدلجوج أو إذن له كل الحيس دلكان قروح ديسة وناجيسة أيها وحن إذن كجسوا قد من دونا برنامجات حنا وهذا ركتان دلك أدليهين قروح ديسة وناجيسة قيمه سا وحساسار كيسة وحن لا هي مدن علي عبد الدعالة كعنت هذا إلهي هلا بخبرك أيو ذلك وناج أدوج جديد إن دلك قبر واقديسة بالعدي الصوب نكت. هذا عقار ميرنا قروح له بس هو رأي مطلق أسكدروا سلاك طويل. قام يغطي مصراشنا. أوجه. waxaan u nimid inaanu dadka iyaga u soo gudbino dhulkooda barwaaqada uu leeyahay bilicda uu leeyahay barwaaqada uu leeyahay waxaan leenahay inta u dalxiis lahaydeen Sharm el-Sheikh ama Miami Beach ama Imaaraadka ama Malaysia war dhulkaana leedahay bilicdaas ilaahay dhigay cimiladaas iyo qorraxdaas macaan ayaa ilaahay dhigay fi iyo kuleel iyo baraf midna ma laha halkaas aan caawa seexanaynaa burkayagan ku dubanaynaa beeraha yagan cunaynaa dalka ka soo baxa cunto organic aan cunaynaa
oo dhulka sidii ay uga soo baxday quality control uma baahna dadka cunaya cuntooyinka la barxay waxa weeyaan la khasbay waxa la kiimikaaleeyay xoolaha kiimikaaliska lagu koriyay boqolaalka cudur ay ka dhaxleen waxaan rabnaa inaan anagu aysan nagu dhicin sidii aabayaashii iyo awoowayaashii dhulkan iyo ciidan ay ugu noolaayeen inaan ugu noolaano anagoo nimcadaas iyo barwaaqadaas cunayna inagoo dhulkaya ku raaxaysanayna dhulku waa amni wax ma yaqaanka yiraahdo dhulku amni maaha waa la isku dilaa waa la isku dhacaa waxaan leenahay waana aragtaan hantidayadii baan sidanaa barwaaqadayadaasaan ku dalxiisaynaa meeshaanu rabnaan seexanaynaa wax amni darro ah oo jira ma jiraan adduunka Washington iyo New York iyo Paris iyo wixii ka dhacay waa arkayseen amni darrada Yurub iyo galbeedka iyo Ameerikaba waa ka dhacda waxa weeyaan falalka dhaca wax kuwa ka yar baa anaga naga dhaca dadku waa dad Soomaaliya waa dad ehela waa dad walaalo ah waa dad isdhex maraya meel walba nagu nool yahay meel walba qof Soomaaliya aragtina farxad baa ugu tagaysaa astaantayadu waa nabadgelyo qofka Soomaaliga qof Soomaaliya markuu arko maxaa sheegtay buu yiraahdaa ama nabad ma sheegtay waa nabad baa la yiraahdaa dhaqankeena astaanteena nabadda inaan muujino ayaan u nimid dhulku inuu nabad yahay inuu qurxoon yahay inuu barwaaqo yahay marka gudoomiye waxaan rabaa ereygan daljoognimo dad badan baa ka helay oo social media isticmaala oo qurba joog iyo daljoogba marka daljoog muxuu ka dhigan yahay daljoog wuxuu ka dhigan yahay qof muwaadin ah oo Soomaaliyeed oo dalkiisa jooga oo dalkiisa ku qanacsan sidoo abwaankii Soomaaliyeed uu ku yiri waxa weeyaan hadii aanan dhulkayga dhaqso ku abaalgudin hadii aanan dhulkayga dhiig cadaawo kugu shabin Soomaali kama dhalan Soomaali biyuuro weeye dalkan inaan cadow ka dhicino cadowgii soo aada sidii Axmed Guray iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo intii la midka ahaa ay u dabargooyeen inaan u dabargooyno inaan dalkeena ku abaalgudno inaan nimcada iyo barwaaqada ku jira ka soo saarno inaan bilicdiisa ilaalino inaan dhisno isagaynu leenahay hadaynaan dhisin cid inoo dhisaysa lama arko كاميرooyinka darandooriga u dhaca ku qaadaya dalkiisa bilicdiisa iyo barwaaqadiisa si uu ugu dhiirigeeyo dalkiisa dadkana nimcada ku jira kala soo baxaan gudoomiye maxaa cunaysaa bal noo sharax calafnimo u diido cunu waaye mooy ciidana waa hodan isbaaskii baa ku yaal barbaroonigii baa ku yaala basashii baa ku taal karootadii baa ku yaal baamiyihii baa ku yaala rumaankii baa ku yaal dindhanaantii baa ku taal saytuunkii baa ku yaal timirtii baa ku taal wax dibad laga keeno uma baahnin cunto expire uma baahnin cunto aan quality control lahayn uma baahnin dalkeena cuntada organiga oo ka soo baxaysa oo ciideena hodanka iyo biyaheena ku soo baxaysa ayaynu cunaynaa iyadana ku raaxaysanaynaa dad badan oo Yurub iyo Ameerika jooga ma helaan barbarooni ay geedkoodii ka goosteen ma helaan liin ay geedkeedii ka goosteen ma helaan karooto ay dhulkooda markiiba kala soo baxaan ma helaan timir ay geedkeeda sida kaasoo kale uga goostaan runta haddii aan la sheegin
wax ka cun baa la sheegay waxa cunaya waa ka waa beerta mirtiisa kan ka soo gooyay ka soo bilaabay abwaankii hadalkiisa gabagiisa haddii aad ka bilaabay بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa kaani axmed muuse halkan joogo waa laag waa meel beeraley ah oo ka mid ah gobolka bari waxa weeyaan meesha tan waxay leedahay beero waxa ka soo go'a qudaar oo dhan waxa ka soo go'a geedmirood sida liinta timirta babayga cambaha muuska qaraha alaabo badan oo noocaas ka soo go'a annagu waxaan nahay dad dhalinyaro ah beerahan ayaan ka tabcanaa beeraha ka tabcanaa ka shaqaysanaa marka taariib ma jecli inaan tagno ma jecli waxa way abwaan baa wuxuu yidhi anuun baa ku daalay dhaguhu ma daloolaane dadkaan la hadlayo baan lahayn duxi iyo iimaane marka taas waxay ku tusinaysaa in ay dadkan dhulka u dhashay oo dhulka iskale ay dhulka ka yaacayaan marka gaan aad waxaas la miyaata anugu waxaas baan leeyahay caruur baan leeyahay dhulkaana uga shaqaystaa alxamdulilah wax balwada ma leedahay anigu wax balwada ma lihi maxaa balwada kuwa markaa wax balwada ii ah diintayda iyo shaqadayda iyo howlahayga marka beerahan wax soo saarkooda xagee la geeyaa beerahan wax soo saarkooda waxaan geynaa magaalada Boosaaso ee gobolka Bari baanu geynaa halkaasaanu iibsanaa qiimo fiican baan nala ka siiyaa alxamdulilah saasan ku shaqaysanaa gaani waxaa jira dhalinyaro badan oo dalkii ka tahriibaya dhalinyaro badan oo shaqo la'aan ka cabanaya dhalinyaro badan oo wax bartay oo aqoon-yahan ah oo goobaha lagu sheekaysto fadhiya iyaga laftigooda maxaad leedahay waxaan ugu baaqayaa dhalinyarta goobahaas joogta oo bilaa camalka ah ama si dibadda ku socota walaalayaal dhulkiina waa kuwan waa kan dhulkiina waa dhul hodana annagaa ku nool annagaa ku dhaqan annagaa doonayna inaan fuujarkayaga carruurtayadu ku sii dhaqmaan anigu hadda carruurtayda waxaan jeclahay inay ku sii dhaqmaan dhulkooda dhulkiina u soo noqda waxaan leeyahay dhulkiina imaada u soo noqda dhulkiina wixii tegaya kii tegayo joog kii maqan oo dhul shisheeye aaday oo jirahu soo noqo tan aynu ku ran dalkaaga wax ku tahay dalkaaga wax ku tahay aan leeyahay cabdirashiid iga war beeraha iyo shaqadaada beeraha iyo shaqada kooyay waa wanaagsan yihiin haye waxa la sheegay inaad dalkii nacdood ka taariibis maxaa ka jira maxaa ka jira taariibta raas khiyaaliyan lagu shaqeeyay beerta ka war wax soo saarkeeda beerta wax soo saarkeeda wanaagsan yahay wanaagsan yahay dhalinyarada asaaga maxaa ugu baaqaysaa dhalinyarada asaaga waxaan sidaas dhalinyarada asaaga waxa ugu baaqaya sidaan oo kale inay shaqeystaan in wadankooda wax ka qabsadaan xaasil miyaa tahay xaas uu joogaa carruur ma dhashay carruur rajaynaysa sama laakiin ilaahay ka rajaynaysa maxamed oo adoo magacaaga saddexan ugu bilaabay bal waxaad nooga warantaa beertan aan maanta joogno yaa iska leh aniga iska leh waxa la yiraahdaa maxaa xidhan marka adoo codka ku qaadaya maxamed bal nooga waran wax soo saarka beertan wax soo saarkeeda fiican yahay wax ku yaal wax kasta waa kaaroodkii waa barbaroonigii waa basbaaskii waa yaanyadii waa basashii waa baamiyihii waa salka wax kasta oo dalkii laga soo baxay qudaara marka wax soo saarka beertan ee xagee la geeyaa wax la geeyaa Boosaaso magaalada Boosaaso haye waa sidee marka suuq waa caadi suuqa fiican yahay suuq fiican oo kee way in dhalinyaro baa tahay maxaa salaatay maxamed haye bar waxa iga warantaa balwadaadu maxay tahay balwadayda anu balwad mari waa shaqadeeda balwad ku ah dhalinyaro badan baa dalkii ka tahriibaysa qaarkood shaqo la'aan bay ka cabanayaan qaar waxa weeye waa moralkii baa ka jabay dhalinyaradaas adigoo la hadlaya maxaa leedahay waxaan leeyahay iska daaya dalkiina wax soo saar iyo wax kasta u baahan wax kasta ka soo baxayaan beerihii qudaartii ayu nooc wax kasta waa ka tahriibta iyo waxa ku jiraan iska daaya beerihiina dalkiina ka shaqeysta rag badan baa jira oo dhalinyaro ah qaad habeen imaan u fadhiya iyaga laftigooda maxaa leedahay qaadka iska daaya waddankiina u shaqeysto dhulka wax kala soo baxa u shaqeysta qaadka ku jiraan iyo muqaadaraadka iska daaya marka beerahan iyo shaqadooda ilaa intee sano ku jirtay hada waxa ku jira dhammaantood 5 sano marka mustaqbalka maxaa rajaynaysaa mustaqbalka inaan wax fiican ka tabcado oo mustaqbal caadi aan ka tabcado wax weey dhaqaale caadi ka asaas marka hadda beero kale ma leedahay aduu ilaa 3 beerood baan leeyahay xagee ku yaalaan wuxuu kala yaalaan hadda gub iyo dhub iyo halka iyo ugu dhawda tahay joog
marka dhalinyarada aan maaragtay beeraha iskale aan shaqaysanin laftigooda maxaad ku guubaabinaysaa inay shaqaystaaneen oo waddankooda wax kala soo baxaaneen oo dib u soo noqdaaneen oo waddankooda wixii qudaara wixii kale kulli ay waddankooda wax kala soo baxaan waddankooda inuu wax leeyahay ogaadaaneen oo meesha uu ku socdaan waddankooda inuu ka fiican yahay ogaadaaneen marka meeshan waxaa la sheegay inaad leedahay meelo loo dalxiisto laag oo dadka yimaadaan ka war marka booqashada dadka booqashada fiican tahay dalxiiska meelaha loo dalxiisto ugu fiican weeye halka aadaanka la yiraahdo wallahi halkaas la dhahaa meesha ugu dalxiis fiican weeye meel ka fiican ma jiro ka war biyaha beeraha lagu waraabiyo xagee ka yimaadaan biyuhu waa biyo aadaan ka soo baxa oo waxa weeye biyaha durturka oo barkadaha soo galo barkadahaas dadku cabaan qaybna waa biyo matoor oo matoor laga isticmaalo labada qayb baa lagu isticmaalo laga cabaa marka magaaladu wax soo saarkeedu beeraha ku tirsan tahay wax soo saarka beeraha ku tirsan tahay aniga bismillaahir rahmaanir rahiim waxa la Cabdiqaadir Maxamed Jaamac la yiraahdaa waxaan joogaa tuulada laag halkaas waxaan nahay beeraley marka hadda beeraha yagaan iska falanaa dhalinyarada waaxid reer tuulaa oo reer laageed kulli beerahooda ay fashaan ma ay wax kale oo haatan ay ma tahriibaan marka wax soo saarka beeraha waa sidee wax soo saarka beeraha waa fiican yahay inkastoo cayaan iska jiraan oo aanan hadda dawoota yar aanan helin laakiin waa kuma qadno waa fiican yahay marka hadda maxallaan waa dhaamaan intii la tahriibi lahaa ama xumo laga qayb qaadan lahaa oo dhul waxa la geli lahaa marka hadda xaalku waa noo fiican yahay ahmiyad intee leeg bay beerahan u leeyihiin dhulka iyo dadka ahmiyad aad iyo aad u weyn bay u leeyihiin sababtay tahay haddii nimaan dhul qodani gaajaba kama bacdo waxaan ku waaninayaa dadka meel kasta oo wax geli karaan dhulkeenu waa hodan waa dhul dihin waa dhul cugur ah waa dhul aan hadda ka horow aan laga faa'iidaysan waxaan jeclahay kulli Soomaali oo dhan gaar ahaan reer Puntland inay ka faa'iidaysan dhulkooda oo barwaaqo ah meel kasta oo biyo laga qodo waxa weeye markii u baahan 10 mitir ilaa 12 ilaa 15 meesha ugu dheer baa lagu gaarayaa marka waa dhul beermi kara marka waxa weeye ahmiyad fiican bay dadka u leeyihiin dhammaan marka beerahan ku yaala tuulada laag maxaa ka soo go'a oo laga faa'iidaa beerahaas waxa laga faa'iidaa waxa ka soo go'a qudaarta boosasho lagu cuno ayu nooc ayaan yahay tahay basbaas barbarooni basal kaarod kabsar salar waxyaalaha timir baa arkay timirta ka waray laftigeeda timirta xagaagi weeye hadda waa wali ma ayan laakiin xagaagi iyada wax fiican ma soo go'da xagaaga wax fiican baa ka soo go'a hadii laga shaqeeyo wax walba shaqaday ku xiran yihiin marka inta dhalinyarada hadii arkaysid waa gaarkaaga maraysa kulli waa beerley xagaagina waa timirta iyo liinta waqtiga qabowgana waa dalagaas qudaarta oo lagu cuno boosaas waxaa jira dhalinyaro badan oo dalkii ka cararaysa oo ka tahriibaysa waxaa jira dhalinyaro badan oo shaqo la'aan ka cabanayo oo magaalooyinka badanaa jooga oo wax soo bartay laftigooda maxaa dhalinyaradaas ku dhiirigelinaysaa dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa dadka kuwa cararaya inay wadankooda wax u dhaama ayaan helayn sababtay tahay intay ku dhiman lahaayeen saxaro ku dhiman lahaayeen ama badda Mediterranean-ka ku dhiman lahaayeen ama magafayaal iyo kuwa lagu sheegay ay qabsan lahaayeen ama ciidamada naarta iyo waato ay kantaal ku dhufan lahaayeen iyagoo badaha maraya waxaan leeyahay kuwa ka tahriibaya inay wadankooda aaminaan oo ay meel walba ay hadday buurta xiji tahay iyo hadday beer tahay iyo hadday xoolo tahay ay wadankooda aaminaan kuwa wax soo bartayna waxaan leeyahay de waxa weeye wadanku waxbarasho u baahan yahay inaad dadka wixii aad bari kartaan bartaan haddii aad beeraha ka soo baxdeen haddii aad xoolaha ka soo baxdeen haddii caafimaad haddii waxa weeye ninkii wax bartayna haddii waxa weeye wadanka waxbuu ku siyaadinaya aad baa u mahadsan tahay waxaan kaaga mahadcelinaya waraysiga ugu dambeyntii mustaqbalka maxaa rajaynaysaa mustaqbalka waxaan rajaynayaa dadka oo dhulkooda aaminay oo reer Puntland khaas ahaan nin waliba uu meel beeranayo oo motorkiisa iyo beertiisa isku haysto sida rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel iyo anaguna mustaqbal inaanu ka faa'iidno sababtay risq xalaal weeye oo waxa weeye waxa maaragtay shabahaadi kuma jiraan waxa weeye xabadii ka dhacdo shimbir baa cunaysa xabadii ka dhacdo wixii ummadda wixii ku yimaada waa waxa bisil oo kula wadaagayaan marka wax faa'iido dhaama oo maanta beeraha jira ma jiraan
saasaan u rajaynaa mustaqbalka يا عسكري جاي هجم المرأة يا جاري وين كلها جاية ها ولا في عمل سلوله هو بعد سلام محمد عبد الله عبد الله عبد الله